Assalaamu calaykum my dear friends kusoo dhawaada English with Naja maanta asxaabi waxaynu soo gudbinaynaa waraysi laga qaaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh isagoo wadanka Turkiga jooga insha Allah wax badan baad ka faa'iidi doontaan like-ta haynaga ilaawina asxaabi waxba idin ma yeeliso inaad iska taabataan like-ta fadlan like meel fog ayayna gaarsiinaysaa wax badanna way noo taraysaa don't forget to like-ta haynaga ilaawina waad mahadsantihiin daawasho wanaagsan caleenta yar waxaan saaray wariyada maadaama aan asturnayn haddana waxaan iska diiday qof aan asturnayn inaan soo gudbiyo marka sidaa darteed ayaan caleenta u saaray so let's get started. Israel's decision to recognize Somaliland as an independent state has triggered strong condemnation from your government. waxay tiri Israel's decision to recognize Somaliland as an independent state yani Israel waxay go'aan ku gaartay inay Somaliland recognize ay aqoonsato as an independent state sidii wadan يعني xor ah ama اعتراaf haysta haddaba Somaliland اعتراafka wadanka ka helay has triggered strong condemnation from your government يعني dowladdaada ama xukuumaddaada wuxuu ka dhigay mid dhaleecayn weyn ay ka timaado as well as a wave of international backlash. How are you responding to this move? as well as a wave of international backlash sidoo kalena caalamka waxaa ka yimid backlash macnaheedu waa negative reaction ama waxa weeyaan falcelin xun oo aad u xun welibana ayaa caalamka ka yimid as well as a wave of international backlash sidoo kale caalamkana waxaa ka yimid ama dowlado badan waxaa ka yimid backlash ama falcelin xun markii Somaliland ay wadankaasi ugu dhawaaqay aqoonsi. How are you responding to this move? What concrete steps is Somalia taking right now to challenge this move internationally? How are you responding to this move? macnaheedu waxa weeye sida tallaabadaas uga jawaab celisay respond waxa weeye jawaab. Okay, how are you sidee baad responding uga yani jawaab celisay to this move tallaabadaas yani markii caalamkoo dhan yani uu ka bixiyay bad reaction or negative reaction adigana dhaleeceen yani lagu soo jeediyey sidaad yani uga bixisay Somaliland اعتراafkeeda sida jawaab uga bixisay. Okay, iyadoo hadalkii sii wadata waxay tiri what concrete steps in Somalia taken right now waa maxay tallaabooyinka Soomaaliya hadda qaaday ay arintaa ka qaaday. Okay, concrete steps horta concrete macnaheedu waxa weeyaan sibirka ama waxyaabaha guriga lagu dhiso laakiin concrete steps waxaa looga jeedaa practical actions ama tallaabooyin la taaban karo inay dowladdu qaaday. Okay, what concrete steps in Somalia taken right now waa maxay tallaabooyinka ay Soomaaliya hadda qaaday ay ka qaaday arintaas. To challenge this move si looga hortago tallaabadan internationally si caalamiya yani si looga hortago اعتراafka si caalamiya ma jirtaa steps ay qaaday Soomaaliya imika. Okay, to challenge this move si looga hortago tallaabadan internationally si caalamiya. Okay, intaasi madaxweynaha weydiisay bal wuxuu ku jawaabayo inaan eegno. Well, first of all, it's a very sad situation. The international law has to be respected. That is the way the world are working together in an orderly manner. wuxuu ku bilaabay madaxweynuhu hadalkiisa first of all it's very sad situation ugu horreyntii arrintan waa arrin aad u xun ama xaaladan waxa weeyaan waa xaalad xun. Okay, the international law has to be respected يعني sharciga caalamiga waa in la ixtiraamaa. Okay, the international law sharciga caalamiga has to be respected waa in la ixtiraamaa. Okay. inoola gareey barnaamijka. Okay, that's the way waa habka the world are working together uu adduunku u wada shaqayn karo. The world oo caalamku ama adduunku are working together uu u wada shaqayn karo in an orderly manner yani si habsamiya uu u wada shaqayn karo in yani la ixtiraamo international lawga waa habka adduunku u wada shaqayn karo orderly manner macnaheedu waxa weeyaan si habsamiya. The world are working together adduunku u wada shaqayn karo in an orderly manner yani si habsamiya. Unfortunately, in recent times, Israel was not behaving in a manner that is compatible or convenient with the international law. Unfortunately, in recent times macnaheedu waxa weeyaan nasiib xumo in recent times waqtiyadan dambe. Unfortunately, in recent times wuxuu uga jeedaa nasiib xumo in recent times waqtiyadan dambe. Okay, sidoo kale fortunately waxa weeyaan nasiib wanaag. Unfortunately waxa weeyaan nasiib. Unfortunately in recent time yani nasiib daro waayadan dambe Israel was not behaving yani Israel wadanka la yiraahdo was not behaving yani umu dhaqmin behave waxa weeyaan u dhaqbitaan ama samayn. Tusaale
you need to behave like an adult يعني waxaad u baahan tahay inaad u dhaqantid sidii qof weyn marka behave waxa weeye dhaqantaan okay hadalkeena aan isku soo wada macnayna wuxuu dhahay unfortunately in a recent time Israel was not behaving يعني nasiib daro waayadan dambe Israel umay dhaqmaynin in a manner that compatible waxa weeyaan macnaheedu yani hab compatible waxa weeye waafaqsan hab waafaqsan and convenient oo ku habboon with international law international law waxa weeye sharciga caalamiga umay dhaqmayn yani hab ku habboon oo waafaqsan international lawga ama aan idhaahday sharciga caalamiga dowladdaasi umay dhaqmayn compatible waxa weeyaan waafaqsan convenientna waxa weeyaan ku habboon sida suitable oo kale weeyaan convenient suitable bay la macno tahay law when we see what has happened in Gaza in recent years and the long history of the Middle East conflict and wars. When we see what has happened in Gaza in recent years macnaheedu waxa weeyaan markaynu eegno waxa ka dhacay Gaza sanadadan dambe ama sanadadan u dambeeyay when we see what has happened in Gaza in recent years markaynu eegno waxa ka dhacay Gaza sanadadan u dambeeyay recent years macnaheedu waxa weeyaan sanadadan u dambeeyay recent times baynu soo aragnay oo ah waqtiyadan u dambeeyay halka hore waxaan ku soo aragnay recent times oo ahaa waqtiyadii u dambeeyay recent yearsna waxa weeye sanadadii u dambeeyay recentlyna waxa weeyaan waayadan dambe recently waa waayada dambe ama waqtiyadan dambe so hadalkan isku wada macnaheedu when we see what has happened in Gaza in recent years yani markaynu eegno waxa ka dhacay Gaza sanadadan dambe and the long history iyo taariikhda dheer of the Middle East conflict wars يعني iyo taariikhda dheer ee ah dagaalada iyo isku dhacyada bariga dhexe conflict waxa weeyaan isku dhacyo ama isku horimaad iyo wars oo ah dagaalo The northern regions of Somalia has always had that problem of secessionism, separatism, but we always have been trying to negotiate. The northern region of Somalia has always had that problem secessionism separatism يعني معناheedu waxa weeyaan gobolada waqooyi the northern region يعني معناheedu waxa weeyaan gobolada waqooyi of Somalia ee Somalia has always had that problem weligoodba dhibaatadaas way haysatay dhibaatadaas oo ah secessionism separatism يعني ah gooni goosadka iyo kala go'a okay kala qaybsanka weligoodba yani inay go'aan ayay dooni jireen oo dhibaatadoodu waxa weeyaan waxay doonayaan yani inay gooni goostaan but we always have been trying to negotiate yani macnaheedu waxa weeyaan inta badanna yani waxaan isku daynaa negotiation ama wada hadal inaan yani furano wuxuu dhahay gobolada waqooyi ama Somaliland waxay ku dhiban yihiin gooni goosad annaguna badanka waxaan isku daynaa inaan wada hadal la furno negotiate and settled our differences in a peaceful manner. The Somali government has never tried to force or to fight or and settled our differences in a peaceful manner macnaheedu waxa weeyaan sidoo kale waxaanu yani kala duwanaanshaha aanu kusoo dabaalnaa hab nabadeed ama waxaanu ku daadejinaa hab nabadeed kala duwanaanshaha aanu kala duwanahay okay and settled our differences in a peaceful manner sidoo kale wuxuu dhahay the Somali government has never tried to force or to fight yani macnaheedu waxa weeye dowladda Soomaaliya has never tried weligeed iskumay dayin to force inay awood isticmaasho or to fight ama inay dagaalanto oo la dagaalanto Somaliland laakiin waxay isku daydaa negotiation ama wada hadal okay Somali government has never tried weligeed iskumay dayin to force inay awood ku muqooniso or to fight ama inay dagaalanto or even to use the diplomatic muscle against these people. So it took 30 years now, plus 30 plus years. But or even to use the diplomatic muscle against these people. wuxuu ka wadaa sidoo kale yani may aan idhaahday or even ama xataa to use the diplomatic muscle umaanu adeegsan yani awood diblomaasiyadeed ama aan idhaahday muscle marka kaliya horta la macnayo muscle waxa weeye waa muruq laakiin diplomatic muscle waxa weeyaan awood diblomaasiyadeed okay against oo yani kasoo horjeeda these people dadka yani dadka reer Somaliland umaanu adeegsan diblomaasiyad kalo umaanu anagu adeegsan awoodda diblomaasiyadda anagu umaanu adeegsan hadalkiisii hore ayuu raacsaday okay dadka lamaan dagaalamin awoodna umaanu geysan sidoo kalena diblomaasiyad awood leh umaanu adeegsan
Okay. Diblomacy haddaad maqashay qofkaasi waxaa weeyaan qofkaasi ama madaxweynahaasi waa diblomacy. Marka qofkaasi waa qof u dhun dalolo oo wax badan ka garanaya oo xirfad u leh oo yacni profession ku ah xiriirada caalamiga ama diblomaasiyadda. So wuxuu dhahay dagaal iyo awood iyo diblomaasiyad midna umaanu adeegsan dadkaas reer Somaliland. So it took 30 years now or 30 plus years. Marka waxay qaadatay buu yiri 30 sano ama wax ka badan 30 sano yacni intii aanu Somaliland u kaadinaynay oo aanan awood u isticmaalnay oo aanan diblomaasiyadeeda xitaa awood ugu isticmaalnay waxay qaadatay in ka badan 30 years. I would like also to mention in this occasion that Turkey has tried to mediate between Somaliland regions and Somalia, and we have a couple of meetings. Wuxuu ku daray I would like also to mention sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan xuso I would like also sidoo kale waxaan jeclaan lahaa to mention inaan xuso in this occasion yani munaasabadan inaan ka xuso that Turkey has tried inuu Turkigu isku dayay to mediate inuu dhexdhexaadiyo between Somaliland regions and Somalia. Wuxuu dhahay wuxuu Turkigu sameeyay dhexdhexaadin Somaliland iyo Somalia. And we have a couple of meetings here in Turkey in 2015, even as far as 2015. And we have couple of meetings. Wuxuu dhahay waxaan ku yeelanay kulano ama shirar waxaan ku yeelanay Turkiga. We have couple of meetings danahay Somaliland iyo Somalia. Okay, here halkan in Turkey in 2015 2015 ama horaantii 2015 waxaan ku yeelanay kulan Turkiga. Israel has now shifted it into another way. But alhamdulillah, the whole world is standing with Somalia now. Israel has now shifted it into another way. Wuxuu dhahay yani si kale ayay yani u rogtay ama si kale u bedeshay arrintii noo socotay anaga Somaliland dawladdan ictiraafka Somaliland ugu dhawaaqday anagoo wada hadal noo soconayo ayay shifted into another way yani ayay si kale u bedeshay ama si kale ayay u rogtay arrintayadii. Alhamdulillah, Ilaahay mahadi, the whole world is standing with Somalia now. Adduunka dhan baa Soomaaliya u istaagay. Yani Soomaaliya midnimadeeda adduunka dhan baa doonaya. The whole world is standing with Somalia now. Adduunka dhan baa Soomaaliya u istaagay ama barbar. Mr. President, you warned about the implications of this decision, that it might import conflicts in the Middle East to the Horn of Africa. What specific risks do you see emerging specifically? You warned about the implication of this decision. macnaheedu waxa weeyaan su'aal bay weydiisay kala madaxweynaha waxay ku tiri waxaad ka digtay yani saameynta implications waxa weeye saameynta of this decision go'aankan yani waxaad hore madaxweyne uga digtay saameyntu yeelan karayo go'aankan yani dawladda inay ku dhaqaaqdo go'aanka Somaliland ku ictiraaftay. Okay, sidoo kale waxay ku dartay that it might important conflicts in the Middle East. taasina yani waxaa laga yaabaa inay u soo rarto ama in ay u wareejiso dagaalka Middle East-ka ku jira ama colaadaha Middle East-ka ama bariga dhexe ku jira to the Horn of Africa inay u soo wareejiso geeska Africa. So waxay weydiisay what is specific risk do you see emerging? Yani waa maxay dhibaatooyinka gaarka ah ee aad filayso inay soo bixi doonaan maadaama yani go'aankani uu hoosta ku wato in colaada Middle East-ka ka jirta ama bariga dhexe loo soo wareejiyo geeska Africa. Adigu waa maxay dhibaatooyinka gaarka ah ee aad arkaysid inay soo baxaan? Okay. Specifically for Somalia and the wider region, with regards to specifically the relocation of the Palestinians, that's a very important issue right now. Specifically for Somalia and wider region, gaar ahaan Somalia iyo gobolka oo dhan. Yani waa maxay dhibaatooyinka filanaysid inay ku soo bixi doonaan? Okay. With regards to specifically the relocation of the Palestinians. Yani marka la eego gaar ahaan raritaanka la doonaya in Palestinianska lagu soo raro Somaliland. Waa maxay dhibaatooyinka adigu arkaysid yani filanaysid inay soo baxayaan? Okay, relocation waxa weeyaan yani raritaan ama in dad meel laga guuriyo meel kale la geeyo. Sure, right now. Knowing the recent behavior of Israel in the Middle East and on the Palestinian issue. Wuxuu ku jawaabay knowing the recent behavior of Israel. Yani wuxuu yiri waxaan ognahay the recent behavior habdhaqanka baryahan dambe of Israel ama baryahan dambe dabeecadaha la soo baxday Israel in the Middle East on the Palestinian issue.
Okay, isku soo wada macnayno knowing the recent behavior of Israel. يعني wuxuu dhahay waan ognahay habdhaqanka ay la soo baxday baryahan dambe Israel in the Middle East ee ku saabsan Middle East-ka ama bariga dhexe on the Palestinian issue ee ah yani arinta Falastiin yani raritaanku ka wada Falastiin la doonaya in la raro. intaasaynu kusoo gabagabeynayna aad ayaad u mahadsantihiin insha allah wixii faalaa ama waxaad u baahantihiin in warar cusub laydiin soo turjumo ama waxyaabo kale insha allah commentiga noogu reeba aad ayaad u mahadsantihiin salaamu calaykum laagtahay naga ilaawin haddaad nagu cusubtahayna nagu soo diir amaana allah